wax walba oo nafta ay karaahaysanaysan waa wax walba jannada ku dhaweynayo ugu geenayo wax walba ay nafta ay jeclaysanaysan waa wax walba oo naarta ku dhaweynaysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalayaal meel wadooyinka joogtaan waa walaalkiin Abu Maxamed Cabdu Maxamed Yuusuf iyo walaashina Maryam. soo dhawaad walaalay qaaliga ku soo dhawaad walaal qeyrka idin la jecel halkaan naga daawanaysaan waa Dacwa Family. bismillaahi wassalaatu wassalaam calaa rasuulillaahi amaa bacd. insha allah walaalayaal muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay oo kaga hadli doonaa walaalayaal waxaynu ku jirnaa bishii Shacbaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu na gaarsiiyo dhammaanteena walaalayaal bisha Ramadaan. bishaan Shacbaan fadli ayay leedahay walaalayaal. bishaani waa bil aad u khayr badan oo fadli badan walaalayaal. saadaadeed marka walaalayaal qofka muuminka ahna waxaa laga doonayaa maadaama aan rajaynayno in ilaahay na gaarsiiyo bisha Ramadaan, qofka muuminka ah bisha Shacbaan waa uu kacaa cibaadooyinkaas waaweynka ee ku soo socdo siduu u wajihi lahaa ayuu ka fikiraa. wax walba u fududeynayo si uu la qabsado cibaadooyinkaas aadka u weyn siduu uga bixi lahaa ayuu hadda sii bilaabaa. dadaalkiisa hadda ayuu sii bilaabaa, hadda ayuu toobar sii qaataa. saadaad marka walaalayaal bishaan Shacbaan waa bisha qof walba oo mu'min ah uu baraarugayo oo ay dadku dhan way mashquulsan yihiin. waxaa la isku diyaarinayaa waa bisha Ramadaan. qof walba wuxuu leeyahay ilaahu i gaarsiiyo bisha Ramadaan. bishaani marka dhaxda ayay kasii bixaysaa. saadaad marka Maryama bishaan Shacbaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha uu sameeyay jiray waxaa ka mid ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam bishaan ay aad ay u badan jiray soonkeeda. waxaana ku tusay arinkaas heeti umuna Aisha radiyallahu anha waxay leedahay ma ra'aytu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam istakmala siyam shahrin qad illa shahru Ramadaan. umuna Aisha radiyallahu anha ala karan noqday waxay leedahay maana arkin rasuulka sallallahu alayhi wasallam bil uu kaamil yeelay oo soonkeeda inuu bilaabay dhameystiray illa bisha Ramadaan ma ahayn. ma ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu صياما في شعبان. رواه البخاري ومسلم. ومن عائشة رضي الله عنها وحليها هاي نبي صلى الله عليه وسلم ما ناركنا يليها هاي بالأصون كذا إنه بلاو ولا ما يستروا إلا بشهر رمضان. سيدو كله حليها هاي ما نارك بلاها بالأصون كذا وبدي إلا بشهر شعبان. وشعبان كمركو سوق النبي صلى الله عليه وسلم انت ugu badan uu soo jiray aad ay u soo jiray saasay leedahay umna Aisha radiyallahu anha. yani soonkeeda uu bayn jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam aad Maryama bisha Shacbaan nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ay sababta u soo jiray waa maxay? sababta u soo jiray Usama radiyallahu anhu ayaa su'aashan weydiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuuna leeyahay ya rasuulallah lam araka tasuumu shahran min ash-shuhuri ma tasuumu min Shacbaan. wuxuu weydiiyay Usama radiyallahu anhu ala karaan noqday wuxuu leeyahay ya rasuulallah maana arkin bilaha bil aad kaga soo badan tahay bisha Shacbaan. markuu uu weydiiyay Usama رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم مركو ويدي أي رسولك وحكيره سدح سوود أي شيء أسامة صح وسدح سوود وجوابي أوكي يعني ميد كوات تنكود حكو دا النبي صلى الله عليه وسلم سبشاني وبلدتك أنت وبدن غافلين أيهين صح إيه الممسيين صح وحين أقول حيثا رجب إيه رمضان أي أقول حساب رجب بلا حرمة كميد أهات إيه رمضان أي أقول حساب يوليه صوردت كده شعبان مركي مخلان وحي أدو بالدقان رمضان أو بدنا وحي المامان فضلك كجرة فضلي خيرك صونك للروين اللي حسوسته بالشعبان ها تصبح على حسوسنا يا رمضان رمضان يتوسع هذا صح تاسو صوبتك وغايت أي صوبت لوادنا وحاء أمري صوبت لوادنا وحاوي وحولي النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين صح مدة لوادنا وحولي النبي صلى الله عليه وسلم بشان شعبان صح وبال أدومدا أعماش قوانا يانودن إلهي لو كريه لا يا لو كريه لما صح أعماش ودنا إلهي لو كريه لا
ومريم marka ma sanadka oo dhan ma acmaashooda dhan ma la wadaa mise acmaasheeda 3 mar ayaa la koryeelaa صح habeenkii iyo maalinkii صح صح waa malaa'igta way isbedeshaa salaad subax iyo casarkii ay isbedelaan صح waa la koryeelaa ilaahay asoo og haddana loo koryeelaa صح يعني ريبورتكي gudbinay maalinkii habeenkii wixii qabanay shaqo صح anaga ma ognan malaa'ig waxaas aan nagu socdo anaga in boodna lagu gudbinayo waxaan qabanayna ma la socono صح يعني waxaan ugu socda anaga iskama warhayno waxaan la gudbinayaa acmaasheena markasta waxaan la gudbinayaa waxa aan sameeynay maalinka waxa sameeynay habeenka waxa sameeynay صح wiigina maalinta khamiista ayaa loo koryeelaa sanadkiina bishan shacbaan gudaheeda ayaa la koryeelaa acmaasha oo sanadkaas dhan u qabanayay marka 3 mar ayaa la koryeelaa waa riboodkii guudan oo la gudbinayo adoomadiis waxay qabanayeen صح marka nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay waa bil acmaasho dhan ilaahay loo koryeelaa taasina waa sababtii labaad okay mid saddexaadna umarin sababta saddexaad nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana saa'im صح waxaan jeclaystaa ayuu leeyahay anigoo sooman ina acmaasheeda ilaahay loo bandhigo ay asbaabta nabi sallallahu alayhi wasallam uu u soomi jiray ayaa waxay tahay inuu ku soo aado acmaashiisa oo la koryeelo ilaahay xaqiisa asigoo uu sooman yahay صح u fiirso yani reportkaaga in la gudbiyo ilaahay loo koryeelo يعني maxaad ka jeceshahay maxaa ka fiican yani adigoo sooman inaad jeclaato adigoo sooman in ilaahay acmaashaada reportkaaga loo gudbiyo maxaa ka fiican nabigu wuxuu leeyahay aniga saas ayaan jeclahay ayuu leeyahay xataa isbuucii nabi sallallahu alayhi wasallam markii la qaaday acmaashiisa wuxuu jecel yahay aniga waxaan jeclahay oo dheh in la qaado acmaasheeda anigoo aan soomanahay u fiirso marka saa daraadeed meeshaasi waxaan ka fahmaynaa umaryam in qofka uu ku dadaalo inuu marwalba bishaani inta ugu badan inuu ka soomo si ugu soo aado marka xilliga oo acmaash la koryeelayo asigoo uu sooman yahay صح taas ayaa meesha ka fahmaynaa umaryama nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam daka shahrun yaghfulu an-naasu canhu bayna rajabin wa ramadaan bal cibaadada dadka markay mashquulsan yihiin oo qofka ilaahay waafajinayo mashquulkaasi ka soo baxay ilaahay xasuusanayo acmaasha khayrka dhinacaas u leexda cibaadadaasi fadli nooc ay leedahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay al-ibaadatu fil harj ka hijratin ilayya xilliga dadka ay mashquulsan yihiin cibaadada alla iimaanaysid way ka fadli badan tahay cibaadada kale sababtoo ah qofka cibaadada uu la iimaanayo riyaa uma geynayo oo istatus dad oo istatusay meesha ma joogo waa ummad wada mashquulsan marka asaga ilaahay uu isku gooni yeelay waqtigaas dadka ay mashquulsan yihiin oo ka faa'iideystay oo ilaahay u dhawaaday مثلا habeenkii dadka way wada jeefaan qofkan wardadiisa macaaneed inuu kala gooyo oo ilaahay u istaagaa qiyaam leyl u istaagaa dadka markay wax baqiilaan xoolaha baqiilayaan asaga ilaahay wuxuu u fududeynaa inuu sadaqada baxsado dadka markay mashquulsan yihiin sida hadda dadka markay aad ku mashquulsan yihiin asaga ilaahay wuxuu u fududeynaa sida bishan shacbaan inuu ka faa'iideysto soonkeeda مثلا رمضان كما كل صوت قال عندنا دتك تمام كورة معنا أنت كلا تمام مشغولين عندنا إيدي على مشغولة أسق إلهي وحوف ذينا قيام الليل قاسنا واستوى وليلة القدر إلهي وافجيه صح ومريم مركوا ويكفل اللي بدنا سنة صلى الله عليه وسلم وشيء عبادين قلة سعيد صح إلهي أنا قال يوقوع عبادي سوف ذي صح ومركي دتك مشغول سنين كفايدست صح cibaadada markii lagu wada qabo waa isla wada taagan yahay oo la wada og yahay waa caadi sax laakiin markii dadka ay mashquulsan yihiin cibaadada si gooni gaar ah loo sheegay way si fadli badnaanaysaa qof kale imaanaya sax umar waa sida noo sheegtay nabiga sallallahu alayhi wasallam saddexdaasi ayuu u saweeyay Usama radiyallahu anhu markuu u jawaabay wuxuu dhahay bishaan waa bil dadka ay ka mashquulsan yihiin ee qaafil ka yihiin waxayna u dhaxaysaa Rajab iyo Ramadan sidoo kale wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam
bishaani acmaasha oo dhan addoommada waxa ay qabanayeen dhan ilaah loo koryeelayaa. isku day acmaashaada midii ugu khayrka badneed in lagaa geeyo, ribood wanaagsan ilaah xaggiisa lagaa geeyo. sidoo kale waxaad ku dadaashaa soonka. nabigu wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam fa uhibbu an yurfaca camalii wa ana saa'im, waxaan jeclahay in la koriyo acmaasheeda anigoo aan soomanahay. Maryama, waa maxay marka xikmadda ku jirto qofka inuu soomo, soon badan oo la imaado? xikmadda ku jirto iyo sirta ku jirto waa maxay? abu maxamed, xikmadda ku jirta waxaa ka mid ah bisha shacbaan qofku wuxuu qaadanayaa tababar inta bisha ramadaan laga gaaray. waayo bishan hadduu bilaabo inuu soomo oo badankeeda uu soomo waxa u fududaanaya soomkii weynaa ahaa ramadaankeeda. waa u fududaanaya. dadka aan bishan shacbaan aan soo soomin ramadaanka maalmaha ugu horeeya yacni wuu ku adkaanaya inay la qabsadaan. sax, wuu ku adkaanaya. nafta sideedana waxaad bartid ha ku celcelisid ayay qabsataa. maalinta koow waa ku dhibtoonaya, yacni waa ku wareereysaa. maalinta labaad sidoo kale, maalinta saddexaad waa la qabsanaysaa. oo nafta sideedaba ma jecel cibaadada. in lagu tarbiyeeyo oo lagu tasiiro inaad ku tarbiyeysid waaye. wax walba oo nafta ay karaahiyeysaneysana waa wax walba oo jannada kuu dhaweynayo oo ku geynayo. wax walba ee nafta ay jecleysanaysana waa wax walba oo naarta ku dhaweynaysa. naftii ma rabto soonkii. صح soonkiina jannada wax lagu helayo. صح marka naftaada waa inaad ku tarbiyeysaa khayrka. صح marka tababaray ku tahay si aad ramadaanka aad u qabsatid. صح Maryama, ka waran sidoo kale dadka hadda qalaal uu leeyahay. dadka qalaha lagu leeyahayna qaasatan dumarka bishan shacbaan aad ay ugu faa'iideysan karaan. waa bisha ugu fiican oo aad gudi kartid soonka qalaha oo ka tagay. sida umuna Caaisha radiyallahu anha ay sameyn jirtay inta ugu badan bishan ay gudi jirtay qalaha. ina umul ahayd ama xeed uu ku joogay ama ilma aad nuujinaysay hadduu soonkaaga soo tagay saas sanadkaanayti hadduu ilaahay ku soo gaarsiiyay bishan shacbaan alxamdulillah nasiib ayaa leedahay waad gudi kartaa. marka inta ugu badan bishan waa bisha qalaha la gudaa. Maryama, aad ay u mahadsantahay si wanaagsan aad bisha shacbaan iyo fadligeeda iyo khayraadka ku jiro aad noo sheegtay. dhammaan asxaabta waxaan leenahay meel walba adduunka joogtaan bishan shacbaan ilaahay sanadda noogu dhameeyo, bisha ramadaanna ilaahay hana gaarsiiyo anagoo caafimaad qabna dhammaanteena walaalayaal. nabadna ilaahay ha noogu dhameeyo insha Allah dhammaanteen. aad ay u mahadsantihiin.